kulan waxaan wanaagsan saaxiibayaal idil ahaantiinba meel walba joogtaan ku soo dhawaada wararkii u dambeeyay xaaladda magaalada Laascaanood. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo fariin hanjabaada u soo diray Muuse Biixi iyo maamulka Somaliland isagoo sheegay in aysan ka gabanaynin marnaba garab istaaga qof Soomaali ah oo sita calanka buluuga ee Soomaaliya. dhanka kale Muuse Biixi oo hanjabaadii u dambeysay u soo diray beesha dhulbahante iyo ciidamadii ugu badnaa oo ay ku diyaarinayaan duleedka magaalada Laascaanood iyagoo la filayo in saacadaha soo socda ay weerar rogaal celis ku qaadaan magaalada Laascaanood. goboleedka Puntland oo ku kala qaybsamay in gobolada SCC ay dowladda federaalka Soomaaliya u dhisto maamul goboleed halka ciidani uu sheegay in aysan arintaasi waqti xaadirkan macquul ahayn. dowladda Soomaaliya iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda goboladan ayaa iyana wada dhaqdhaqaaq xoogan iyo sidii maamul goboleed loogu sameyn lahaa gobolada SCC. xiisada magaalada Laascaanood ayaana waji kala yeelatay iyada oo shirar isgarab socda ay ka socdaan magaalada Muqdisho. beelaha Hawiye ayaa iyana fariin hanjabaada u soo diray beesha Daarood iyaga oo sheegay in haddii ay dagaalkan ku biiraan ay iyaguna soo galayaan isla markaana ay difaaci doonaan qadiyada waxa ay ku sheegeen beesha Irir Soomaali. qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan waxaana barnaamijka qaybiga ah saaxiibkii wacane oo soo indheeyay xaaladihii u dambeeyay ee magaalada Laascaanood. bal ugu horreyn noogu waran xaaladda magaalada Laascaanood iyo waqti xaadirkan xaalka sida uu yahay. aad iyo aad ba mahadsantahay Leesow. xaaladda magaalada Laascaanood lama saadaalin karo marka dambaysa waxaa dhici karo dagaal xooggan oo markaasi ay soo qaadi karaan kooxaha markaasi caadaystay daadinta iyo waliba sidoo kale boobka dadka markaasi ku dhaqan magaalada Laascaanood. jabhadii SNM waan ogeyn waxay ciidamada u suurta gashay dadka deegaanka iyo gabiyaanba iska dulqaadaan laakiin anytime waxaa dhici karo in markaasi ciidamada Muuse Biixi sida gaarka uga marqaato ay halkaasi dhibaato ay ka geysan karaan isla markaana ay soo rogaal celin karaan ama ay soo qaadi karaan weel rogaal celin laakiin dadka deegaanka u diyaarsan waxay gabiyaanba qabsadeen magaalooyinka hareeraheeda iyo waliba dhufaysadii ay markaasi ku gumaadiyeen ciidamada SNM-ta magaalada dadka ku dhaqan magaalada Laascaanood. si kastaba waxayna u muuqataa in xaaladdu ay tahay mid yara degan laakiin walow ay jiraan dhaqdhaqaaqyo markaasi ay wadaan dhinacyada markaasi halka isku hayo iyo waliba sidoo kale isimada iyo salaadiinta iyaga laftirkooda shirar markaasi lagu taakiidinayo in dadku dukaamadooda furtaan oo ganacsigooda dib ay furtaan maadaama xaaladda markaasi halkaasi ay tahay mid aad u cakaran isla markaana laga cabsi qabo inay gebi ahaanba ay dagaalo kale halka ka dhacaan dadkuna waxaad moodaa kuwa markaasi sahaydooda qaadanayo sifo haddii dagaal kale oo halkaasi uga qabsado aysan sahay go ugu dhicin 12 beri oo mudaharaad iyo waliba xaalad cakaran ay ka tagnay magaalada Laascaanoodna maanta waxaad moodaa in saansaankeeda aad moodaa inuu sidii hore yara dhaamo iyadoo waliba ay cabsi weyn dadku qabaan haddana waxa la arkay dad aad u tiro badan oo markaasi dukaamada ka adeeganaya isla markaana rabo inay markaasi iskaga baxaan magaalada Laascaanood oo xilli kasta dagaal ay ka dhici karto iyadoo waliba jabhadda SNM-tuna ay wadaan hanjabaadii ugu dambeysay rabaan in ay ku xasuuqaan dadka beesha dhulbahante. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud fariin hanjabaada ayuu soo diray waxa uu sheegay in aysan marnaba ka gabanaynin dhibaysana qof Soomaali ah oo sita calanka buluuga in lagu dhibaateeyo taaka kamid ah dhulka Soomaaliyeed. madaxweynuhu hadalkiisa maxaa loo fasiran karaa؟ طبعا مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية هذا المركز دينعنا غير لها دينعنا أدمودين ودحدحاد نموجيني أيو كشاق ميد كميدا مساجد واوين مقاليدا مقدشة ومانتا صلاة دي جمعها وكلتو قد قار كميدا مسؤوليين تا مركزي كسو جيدا لانكا دقالada iyo waliba sidoo kale xasuuqa uu ka socday dhanka gobolada SCC iyo waliba qaar kamid ah mas'uuliyiinta ugu sareeya dawladda federaalka Soomaaliya oo ayagu markaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ka sugaya hadal markaasi dadkaasi lagu garab istaagayo hadal uu madaxweynaha jeediyay ayaana ku noqotay sunta dadka kaga ilmeysiisa maamulka Somaliland ta hadalkaasi oo ahaa in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu yahay astaantii qaranka isla markaana marnaba uu ogolaanaynin in markaasi qof Soomaaliyeed lagu dulmiyo isla markaana lagu xasuuqo asagoo waliba calanka buluuga wato meel kamid ah wadanka Soomaaliya. arintan ayaana imaanayso xilli maalmihii ugu dambeysay ama dhowr iyo tobankii ugu dambeysayba xasuuq markaasi loo geysanaya dadka wata calanka buluuga isla markaana ayagu diidanaa aragtida markaasi ah in Soomaaliya ay laba kala ahaato arintaasi oo ah in maamulka Somaliland aan ognahay in xasuuq baan ay ka wadeen saddexdii gobol ee SCC la isku dhahay kuwaas oo gabi ahaanba aan rabin nidaamka maamulka Somaliland ay ka wadaan gudaha dalka Soomaaliya. dhinaca kale saraakiil ka tirsan ciidamada militariga iyo booliska Somaliland ee dhawaan ka baxay magaalada Laascaanood ayaa duleedka magaaladaasi ka bilaabay abaabul dagaal ay doonayaan in ay dib ugu la wareegaan magaalada Laascaanood.
ciidamada Somaliland ayaa habeenkii Arbacada ka baxay magaalada waxaana sargaal u hadlay uu sheegay in sababta ay tahay in ay u turayaan shacabka halkaasi ku dhaqan si kastaba Somaliland ayaa hadda ciidan cusub keentay duleedka magaalada oo ku kordhisay kuwii hore waxayna doonayaan in ay xoog ku galaan magaalada Laascaanood oo hadda gacanta ku hayaan ciidamada deegaanka oo hubeysan dadka deegaanka ayaa sheegaya in si weyn magaalada looga dareemay abaabulka Somaliland ay wado isla markaana ay u diyaarsan yihiin in ay iska difaacaan waxaa sidoo kale ay sheegeen in hadda ay bilowdeen in dib loo furo badi goobaha ganacsiga magaalada ee ku xirmay dibadbaxyadii rabshadaha watay ee horey uga dhacay magaalada balse xaaladan cusub ayaa cabsi sii abuurtay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada Laascaanood ayaa bulshada baaq u diray taxadar in ay muujiyaan isla markaana banaanbaxyada ay sii wadaan iskana difaacaan waxa ay sheegeen jabhadda cusub ee ku soo duushay dhulkooda xaaladda Laascaanood ayaa kacsan muddo 2 toddobaad ku dhow kadib markii dil loo geystay siyaasi dhalinyaro ah oo u horseeday in shacabku kacaan kadibna ciidanka Somaliland ay awood u sheegtaan ilaa 20 qof ayaa ku dhimatay magaalada Laascaanood inta ay rabshaduhu socdeen waxaa weli soo kordhaya baaqyada loo jeedinayo xukuumadda Somaliland ee uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi waxaan ogeyn in Arbacadii ciidamada maamulka Somaliland si xoog ah ay shacabku uga saareen magaalada balse hadda ciidamo horle ay Somaliland soo dhoobtay duleedka magaalada Laascaanood waxa ayna doonayaan in ay mar kale xoog ku galaan gudaha magaalada Laascaanood haddaba arintan maxay horseedi kartaa bay kula tahay dabcan arrintan waxay ugu dambeyn ku damayn doontaa in dadka deegaanka waxaan ognahay in haddii shacabku uu kaco aysan cidnana joojin karin isla markaana cidnana aysan ka awood badnayn shacabka iyo ciidamada markaasi iskaashanaya oo ah dadkii deegaanka waxay gebi ahaanba u suurta gashay in ciidamo boqolaal ah oo markaasi joogay oo ku sugnaa magaalada Laascaanood gebi ahaanba ay awood u sheegtaan isla markaana halkaasi ee dhufaysyada meydadkooda uga cararaan dabcan haddana tii unbay ku dambeyn doontaa waxaan ognahay ciidamo kale oo markaasi ayagana dad u dhashay gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood isla markaana dhanka maamulka Puntland ku jira in ayaguna ciidamada u tiro badan ay soo dhoobeen meelan aad uga dheereen magaalada Laascaanood marka ugu dambeyn ciidamadaasi ayaa gacan isku tagi doona Somaliland iyo Puntlandna waxaad moodaa in xaaladooda cirka isku shareeri doonto dawladda federaalka iyo madaxweynaha hanjabaadiisina waanu maqlaynay walow ay jiraan qaar ka mid ah xildhibaanada dawladda federaalka Soomaaliya ku matala gobolada SSC inay markaasi ayaga laftirkooda ay dagaalka qayb ka noqon doonaan oo xildhibaanadu ayaguna ay ciidamo ku soo daabuli doonaan goobaha markaasi sida weyn isku hayaan maamulka Somaliland ayadoo waliba dawladda federaalka Soomaaliya laga yaabo inay ka fiirsato talaabada ay qaadayso military haddana waxaa dhici doonta ugu dambeyn inay faragelin xoogan oo siyaasadeed ay ku yeelan doonto sidii loo dejinayo gobolada SSC markaad fiirso marka xaaladda maamulka Somaliland iyo ciidamada ay soo dhoobayaan waa mid markaasi lagu xoojinayo xasuuqii marka hore ay ka wadeen magaalada Laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool haddana waxaad moodaa inay u soo micelisanayaan oo u heliilsan yihiin dhiigga shacbiga dhulbahantay oo ognahay in ay iyagu soo daadinayeen 12 sano ugu dambeysay cid ka danqanaysan ay jirin inta kale waxa jirto ilaysow in beelaha markaasi la isku dhoo eeri Soomaali iyo daarood haatan ayaga laftirkooda ay bilaabeen xurguf markaasi hadallo badan oo ka soo yeelay laakiin xaaladdu waxaad moodaa inay masan daarood ay gaarsiisanayn oo cisaaqiyo maanta ay isman yihiin maxaa la jiray beelaha kablalax oo ayagu aan ognahay inay aad ugu balaaran yihiin oo yihiin beesha ku dhaqan Ogaadeniya iyo waliba sidoo kale gobolka maamulka Puntland iyo waliba sidoo kale Jubbaland oo ayaga laftirkooda aanu maqlaynay in hadallo ka soo baxayeen ee dhanka dawladda dalka Kenya NFD marka si kasta markii la fiiriyo waxaad moodaa in xaaladda cakaran ee ka taagan magaalada Laascaanood ay tahay mid qabiil aysan haatan ahaynba mid qaranba u taalo maamulka Puntland waxa ay ku kala jabeen sidii xaaladan loo wajahi lahaa isla markaana maamul loogu sameyn lahaa goboladan danina wuxuu sheegay inaysan waqti xaadirkan macquul ahayn in maamul goboleed loo dhiso gobolada SCC waxaan ogahay ilaysow in maamulka Puntland ama anaga gaar ahaan Saciid Cabdullaahi Deni gebi ahaanba uusan asagu wax raja uusan ka lahayn goboladan waxaan ognahay goboladan in horeyba ay uga tirsaneen maamulka Puntland laakiin mar dhexdeera ay sameysteen markaasi maamul gaara oo la baxay Khaatume State haatan dadkan waxay u dagaalamayaan ma aha inay Puntland dib ugu soo laabtaan ama Somaliland ay ka sii mid ahaadaan waxay rabaan inuu kaliya tahay saddexdan gobol maadaama dawladda federaalka Soomaaliya dastuurku qoriyo 2 gobol iyo ka badan ba inay noqon karaan dawlad goboleed gooni
amni ah marka arrintu markay saaba tahayba in saddexdan gobol oo ognayna dad aad u tiro badan ay ku nool yihiin isla markaana ama ka yareenba maamulka Puntland in ayagu ayahooda ka tashadaan isla markaana ay noqdaan maamul goboleedkii marka horeba loo aqoonsanaa ee ahaa Khaatume State haatan Khaatume State ay dib cageeda ugu istaagayso siyaasiyiin markaas ka soo jeeda beeshan ayaana haatan iyagu waxay rabaan gabi ahaanba in ay dowladda federaalka Soomaaliya ka dhaadhiciyaan in state-kan sidiisa uu noqdo isla markaana maamulka Soomaaliland gabi ahaanba ay ciidamada ka dulqaadaan ciidamada dhowrka kun ee askari ah ee haatan Turkiga ee lagu wareejiyay Imaaraadkana ay iyagu qayb ka noqdaan xasilinta iyo waliba sidoo kaleeto ee badbaadinta dadka Soomaaliyeed lagu xasuuqayo goboladan SSC markaasi walba markaad fiiriso xaaladda cakaran ee ka taagan halkaasi waa mid ugu dambeyn ku dambeyn doonto gacanta dowladda federaalka Soomaaliya in lagu wareejiyo deegaanadan isla markaana ciidamada Soomaaliyeed aad ka tirada badan ee 5 sano ugu dambeysay la dhisay ay qayb ka noqdaan kuwa xasilin laha isla markaana dib u yagleeli laha maamul goboleedka ee markaasi Khaatume State oo asagoo aan ognahay inuu ka balaaran yahay Somaliland inta kale ee baaqayga soo noqoto aad iyo aad baad u mahadsantahay daawadayaal waxaan intaas ku soo koobaynaa barnaamijka xubnaha inuu ku eegayna xaaladii u dambeeyay magaalada Laascaanood balse wixii ka soo kordha waxa aad ku maqli doontaan wararkeena dambe oo idin soo gudbin doono saacadaha soo socda hadduu eebba idmo balse intaan kan kiisa xiga aan halkan dib u kulmi doono annagoo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo